oo ka tirsan salaadiinta dhaqanka ee ayna wehelinayeen xubno isugu jiray culimo awdiin iyo waxgaradka beeshaasi ayaa si wada jira waxa ay u sheegeen in ay taageersan yihiin xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye هذا موسى هذا يجبر هذا عدة هذا يعني وحويان دبويه شوري دتي شوري حتى الدراء يعني وحويان حسب ذا طلمية هي تاجر فيه يدولد وعدبتاس وحقيق بين إلا شيء من يناسر إلى إذا توعروه السبين هو شودنا رئيس السبين هو شودنا بين وحده انت وحويان حسب طلمية إيوه دولده ayay taageersan sidoo kale suldaanka iyo xubnahani waxa ay beeniyeen in xisbiga mucaaradka ah ee wadani ay ku beereen taageerayaal beelaha ah oo ka soo jeeda gobolka Togdheer tii ay tusheeyeen toobaye ayay bacanta shalay ka sameeyeen darab ayay ka sameeyeen maaha dad dabeeyaa dad meesha isku أفرتني خلي أيام أمدانا ضرب أنا لينا صدرت أدي لينا صدرت مين تسمع أصول اللندرة والسلطانة وتقرأ ترى عفيدي وحلا ugu dambeyntiina suldaan nadiif qaalib waxa uu beelaha loona yaqaano dan wanaagta uu sheegay in ay hore u taageersanaayeen xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye haddana ay taageersan yihiin waxaana ugu baaqay in ay xisbiyada mucaaradka aan u sheegin waxaan jirin shacabka ku dhaqan gobolkaasi Gabiley ayaa taageeray go'aanka xukuumadda Somaliland ee ah sidii maalgashi loogu raadin lahaa dekedda magaalada Berbera wariyaha nooga soo warrama magaalada Gabiley ayaa faafahinta warkan inoo eegaya Nimcaan Deeg Ibraahim siyaasiyiin iyo waxgarad gobolka Gabiley ayaa maanta shir jiraayad ku qabteen magaalada Gabiley waxa ay soo dhaweeyeen talaabada wax ku oolka ee xukuumadda uu hogaamiye mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ka qaadatay in maalgashi caalami ah loo helo dekedda magaalada Berbera taasoo ay xukuumadda ku taageereen go'aanka maalgashi ay ka qaadatay in guud ahaan dalka Somaliland la maalgashado waxaana siyaasiyiintan hadaladoodii kamid ahaa anta mowduucan ku hadlayna waxa weeye waa dekedii maalgashi ma lagu samayn karaa madaxweynuhu ma bixin karaa wuu bixin karaa wala lagu samayn karaa faa'iidadiisa horumarka iyo waxqabadka dalkeena ka mid tahay ninka ka hadlaya diidanina waxay ahayd inuu arko wasiirka xabar joogay dekedii Berbera maanta dalka waxa haysta Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo dadku doortay horumarka uu qabanayo ayay ka mid tahay caalamkana waa la maalgashtaa marka mucaaradnimadu dee inay noqoto lafjab iyo in luwaada iska qabto waxaan soo dhaweynaynaa in la maalgeliyo dekedda Berbera in magarasa la iska daayo waxaan warxumo tashiilka iyo sidoo kale loo fikrayo faa'iido badan bay laga soo galaysaa saasaan aaminsanahay mucaaradnimo kuma jiro horumarka haddii dalka horumar la samaynayo beritoona la ku fadhiisan doonaa madaxweynaha imika jooga shalay cod ku yimiday haddii mucaarad la yahayna maaha inaan horumarka iyo maalgashiga kor ka istaagno dekedda Berbera la maalgeliyaa qaranka ay daaw tahay reer Berbera daaw tahay reer Somaliland daaw tahay naga muwaadiniinta Somaliland waxaan horta ku koobaad taageersanahay cidda xukunka loo doortay hogaanka dalka haysa mudane Axmed Maxamuud Siraayo dhaqaalaheennii baa kordhaya mujtamaceennii baa shaqo abuur baa loo baahan yahay in dhalinyarada tahriibka laga joojiyaa loo baahan yahay maaha in xisbi iyo xasab la galo dad ka dhigto arrinta maalgashiga dekedda xukuumaddu iyada shacabka kaga wakiila wixii ay ummadan u jahaynaysa xag maaliyadeed iyo xag dhaqaale baa tahay iyadana uga wakiila qaran arrinta dekedda Berberaadna waanu soo dhaweynaynaa dadweynaha reer Gabiley hadana cid kastoo maalgashanaysa xukuumaddana waanu ku berber taagana xukuumaddana waxaan leenahay suuq kastoo dekedda u soo heshaan waanu